kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada silsiladda guusha kooxda kubadda cagta dekada labadii xil ciyaareed la soo dhaafay ku guuleystay horyaalka Soomaaliya Premier League waxaan la kulannay qaar ka mid ah ciyaartooyda ee jihdiga u soo galay ku guuleysiga markii labaad oo xiriir ah sidoo kale waxaan la kulannay qaar ka mid ah maamulka kooxdan waxaan wax ka weydiinay sida ay ku timid guusha markii labaad inay ku guuleystaan horyaalka dalka iyo markii ugu horeysay oo Soomaaliya laga dhaqan geliyo magacaas Premier League oo aan ognahay inuu hadda caan ka yahay Yurub iyo sidoo kale Afrika waxa uu ahaa xil ciyaareed ka duwan sanad ciyaareedii la soo dhaafay sababtoo ah horyaalka ayaa loo bixiyay magac cusub waxaana la samay horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub iyo Afrika waxaana loo bixiyay magaca Soomaaliya Premier League waxaase fasal ciyaareedka 2017-18 ka qayb galay 10 naadi oo u diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxaana dad badan ay filayeen koox aan dekada ahayn inay qaado horyaalka oo lahaa magac cusub maadaama dekadu ay hanteen xil ciyaareedkii kaas ka horeeyay ee 2016-17 Soomaaliya xil ciyaareedkan 2017-2018 ee hadda noo dhamaaday sidii la wada ogsoon yahay waxa ay bixiyeen magac loo yaqaan Soomaaliya Premier League oo ay ka qayb galayeen ilaa 10 kooxood nasiibuna kooxda dekada oo iyadoo kal hore horyaalka heerka kooxda Soomaaliya magac ahaan bari loogu yeeri jiray ayaa ku guuleysatay oo taariikh ka sameysay markii ugu horeysay in ay ku guuleysto horyaalka Soomaaliya oo Soomaaliya Premier League loo bixiyay iyada ayaan sidoo kale ahayd kooxdii difaacanaysay kullee waxaan dareemayaa 2 sano xiriir koox si fudud looguma dhisi karo 2 sano inay koox horyaal qaadana way adag tahay waxaan lagu gaaray dadaal iyo juhdi waxaan aad ugu faraxsanahay koobkii Usbuucii hadda Soomaaliya Premier League inaan ku guuleysanay kii hore 16-17 anaga aan ku guuleysanay Soomaaliya Premier League 2016 magaca watay ay la ciyaaray xil ciyaareedkii ugu horeeyay wuxuu ka duwanaa horyaaladii hore magac ahaan ciyaartooy ahaan oo ciyaartooy magac weyn oo fursado fiican u helay in heerkooda ay ciyaaraan season kan waxa la filayay kooxda dekada in horyaalka ay qaado magac bedelka la sameeyay wax weyn oo soo kordhiyay waxa u sahlanaatay dad badan in ay maaragtay helaan markasta waxa loo qori jiray Soomaaliya First Division loo qori jiray marka luqad qalaad loo rogo hadda waa Soomaaliya Premier League magaca standard isaga wato ayaa inta badan loo qoraa Soomaaliya Premier League inta badan First Division Second Division noocaas ayaa loo isticmaali jiray magaca Soomaaliya Premier League inay taariikh u noqoto dekada iyadoo badda ay 84 qaaday 9 iyo sidoo kale waxa u soo raacday 8 ay horyaalka ku guuleystay kubadda cagta sanadkii 2 sano soo dhaafana in ay 4 jeer ay noqoto ay dekadu 4 jeer ay hadda horyaalkeedu tirsato iyadoo taariikh u tahay 18 Janaayo 2018 kooxda dekada ayaa kulankoodii koowaad oo laha 2017-18 la qaadatay dhigeeda waxool kulankaas ay guuleystayaasha horyaalka Soomaaliya Premier League ku badiyeen hal gool ever waxaana goolka koowaad u daafuray Cabdinjiib Cusmaan Ibrahim oo kaga soo biiray gobolka Banaadir iyo ciyaarihii maamul goboleedyada 2017 labada gool waxay ahaayeen 2 gool oo cajiiba midna tartanka ayuu ku furay Cabdimajiid midna tartanka ayuu noogu soo xiray oo horyaalnimada aan ku guuleysanay kulankii aan la ciyaarayna Badroolka aan kaga adkaanay 6-1 marka waa wax asaga u galay CV-giisa taariikh waa kooxda goolkii ugu horeeyay horyaalkii inuu dhaliyay goolkii ugu dambeeyay marka waa bogaadinaynaa Cabdi waa ciyaaryahan wanaagsan oo tayo leh inuu horumarkiisa sii wanaajiyo ciyaareed dekadu waxay tustay inay koox awood leedahay qaar la geliyay in u qalantay inay noqoto kooxda ugu horeysay horyaalka 2 jeer isku xigta qaada tan iyo markii cooska macmalka la dhigay garoonka waxayna wahayd fursad fiican hoosada ay ahayd kooxda dadka intooda badan u saadaalinayeen horyaalka ay qaadayaan sabab la xiriira iyadoo laga adkaan wajigii horyaalka laakiin wajigii labaad kooxdu dhinaca macaan isbedel ay gashay working hard and we are happy for management and waan ku qanacsanahay maamulkeena iyo sidoo kale macalinkeena yuu calay dhammaanteeni oo isku duuban ayaa u soo dagaalanay inaan koobkan ku guuleysano waana noo suuro gashay management and coach all players we fight for this trophy kooxda dekada horumar weyn ay sameysay laakiin horumarkaas waa horumar laga shaqeeyay sababtoo ah guul waxa la sugi karaa hadii macallimiin fiican maamul fiican iyo maxay ciyaartooy fiican ay isqabsadaan ayaa guul la fili karaa waxaan dareemaa farxad aad weyn walow sanadkan kii hore uu kan ka adkaay 2017-18 laakiin shaqo badan ay qabateen ciyaartooyda macallimiinta iyo maamulka oo aan dhabarka u xiran awgeed
ayaan ku guulaysanay koob. maamulka kooxda dekedda ayaa waqti walba la socday hanaankii iyo horumaradii kala duwanaa oo ay kooxdu waday iyagoo xirfadlayaashooda ka dhiirigelin jiray tarabuunka garoonka banaadir iyo sidoo kale goobaha ay kooxda ku tababaranaysay intii uu socday horyaalka Soomaali Premier League. ciyaartoy fiican oo magac lehna waa la imaanay qarash badanna waa gelin maahan in mataqaanaa qarash la'aan ay wax la qaadi karo qarash fara badan gelin kooxdan ragaan banaanka keenay ragaan gudaha ka aruurin waxa way waxyaalo badan akhrisa mar walba akhrisa ku wadan qaybta naga dhimanba waan keenayna wax kasta lagu qaataan naadiga kubadda cagta ee dekedda runtii waa naadi dhaqaale haysta waa naadi maamulkoodu ka kooban yahay ciyaartoy ninka gudoomiyaha ka ah waa naadi ciyaartoy hore ragga gudoomiye ku-xigeenadiisa iyo maaragtay ragga guddiga kula jira waa rag boqolkiiba 99 ciyaartoy ah nambarka ugu badan markii ciyaartoy isku timaadaan waxay yaqaaneen waxa ciyaartoy u baahan yihiin waxa kooxay ay u baahan tahay waxaan isla guusha dekedda waxay ka timid maamulkay ka timid cunuga markuu dhasho hadda lagama yaabo inuu hore ka socdo uu garguurigu fadhiisanaa uu garguurinaa kadib uu istaagaa waxaan ka helnay dadkeena dekedda naadiga dekedda dhiirigelin fiican waxaan ka helnay mushaaraad fiican daawo fiican ciyaartooyda wax walba oo aan u baahana diyaar ayaan noola ahaayeen annagana shaqo badan ayaan qabanay sidaas ayaan heerkan ku gaarnay tan iyo 2016 kooxda dekedda waxaa taariikh iyo horumar kala duwan ku sameeyay xirfadlayaashii hore ee Libijeeyo kuwaas oo ka soo dhalaalay kaalintoodii iyo kusoo biiritaankoodii kooxdan sanadii 2016 dekedda waxaa horyaalka la qaaday Cabdicasiis Catoosh oo iminka ka tirsan naadiga booliska Soomaaliyeed ee Heegan iyo laacibka lagu magacaabo Saciid Cabdi oo isna ku laabtay kooxdiisii hore ee Libijeeyo taa beddelkeeda kul ciyaareedkii la soo dhaafay 2017-2018 waxaa iyagana diiwaankooda lagu daray in dekedda ay la qaadeen horyaalka xirfadlayaasha kala Faysal Xasan Xaashi iyo Daawud Cabdullaahi Tubal oo dekedda kaga soo biiray Janyo bishii December 2017 daama markaa ka timaanaysa koox kale oo ku soo biireysay inkastoo ciyaartooyda inta badan ay la qabsanaynin ciyaarista kooxdaas laakiin hadda aniga saaxiibkayga Daawud aadaan la qabsanay kooxda waana ku faraxsanahay kooxda horumarka la sameeyay ciyaartooy waxa waa marba meel u aadaa ninkan waxa waaye taariikh fiican ay sameeyeen walow ay horyaalka iyaga waxay ku guuleysteen markii hore jirna Daawud haddana kooxda waxay la qaadeen horyaal kaligoodna ma shaqeynin kooxda 22 ciyaartooy ahayd si guud ahaan wada shaqeeyay horumar aad iyo aad u wacan ayaan gaarnay tababar aad iyo aad u fiican ayaan qaadanay LLBBJ-na markii aan ka soo tagnay horumarkeena waan sii ballaarinay annagoo aan ku guuleysanay aad ogtahay in aan Premier League Soomaaliya aan ku guuleysanay kaas waxa waay sanadkooda ugu horeeyay waa horyaal ay qaadaan mar walba isoo wacaan ay ko dhaayaan champion qofkii champion oo dekedda ay maad ko dhaayaan waqti walba isoo wacaan oo u hambalyeena koobkooda kuwaad inay qaadaan horyaalka anna waa rajeynaa horyaalka inaan qaado runtii inta ciyaartooy ay sheegtay waa ciyaartooy wanaagsan Catoosh oo kooxda ka tagay iyo Saciid sanadkan kalena waxaa ku soo biiray Daawud iyo Faysal intoodaba kooxda waxay ahaayeen laf dhabar waana ciyaartooy wanaagsan oo kooxda kaalin wanaagsan kaga qaatay ku guuleysiga horyaalnimada kooxda horyaalka oo ku bilowday waji wanaagsan iyo dardar xoogan wiilasha dekedda kulamadii labaad 6aad 8aad 14aad 15aad 16aad waxay ku dhameysteen natiijo wanaagsan oo ah barbaro balse waxay loolan adag kala kulmeen kooxaha Banaadir Sport Club Heegan iyo Horseed iyagoo inta badan hoggaanka kala sirintiisa gacanta ku hay horta horyaalka si dambeeyay uu ka adag yahay horyaalka oo hadda ugu dambeeyay kii ka horeeyay kan hadda dambeeyay adag marka mar walba oo tiimkaada u dheelaysid waxa garoonka uga gashay inaad tiimka aad ka farxiso marka geebkaas anigu wuxuu ilaahay hataa goolka aan ka dhaliyay Heegan ma fileen maantii inaan goolkaas aan dhali karo waayo 90 ayuu ku sii dhaweed anna waxa isla waa qoostay koobkan waa ni dhaafa amal aan markaan goolka gili aan dhaliyo wax kale ee noqotay kooxaha sanadkan aad iyo u soo diyaar garoobeen waana arkaysaa horyaalka dardarta uu lahaa kooxaha in ayna xaqiijinin koox iyadoo tartan uu ka dhiman yahay waxa dareemi kartaa horyaalka xamaasadda uu leeyahay iyo sida ay kooxaha isku diyaariyeen runtii waxaan leeyahay sanadkan sanad adag ayuu ahaa waxaana dhihi karaa waa sanad aan dhihi karo horyaalka iigu cuslaa ee aan macallinimadeyda u yahay 10 koox tartanta hal koox dekedda horyaalka guuleysay walow kaan labaad kaalin saacad kala afraad lagu tartamay laakiin horyaalka muhiimadiisu kaalinta koowaad waxaan ku guuleysatay naadiga dekedda sida caadiga horyaalka Soomaali Premier League waxaa la ciyaaraa 9 kulan koox kastana waxaa tiradaas kaga soo aada 18 ciyaarood
wiilasha labadii sano lasoo dhaafay hantay horyaalka Soomaaliya Premier League kaliya waxay khasaareen 36 ciyaarood ay dheeleen tan iyo 2016 laba kulan oo qura waxayna kala kulmeen kooxaha Horseed iyo Elman. Horseed waxay guuldaro kala kulmeen bishii February sanadii 2017. sanadkii hore hal kulan ayaan khasaarnay kadib khasaaradaas kadib waa xisaabtanay kadib waxay noo dhalisay resultigii ka dhashay inaan ku guuleysano horyaalka. Dekada waxaa la isdhihi karaa waa naadiga ugu macnaha ugu ciyaartooyda fiican banoonigooda marka la fiiriyo naadiyada ugu talantiga sareysay ku jiraan oo way ka fiican yihiin naadiyaasha kale kubadda cagta ciyaaro horyaalka kani markay la qiimeyn lagu sameeyo qadkooda dhaxa macnaha markaad u eegto ciyaartooy tayo leh aa ka ciyaar qubay aan isdhihi karin ciyaartooy maanta soo u ciyaaro kubadda cagta Soomaaliya nin u ciyaara isdhihi karin macnaha Soomaaliya waa inyasta Soomaaliya ku tilmaami kara Cabdikariin Qoway. guuldaradii labaad horyaalka Soomaaliya Premier League kooxda Dekada waxay ka soo gaartay Elman bishii Abriil 2018 waxayna ciyaartaas natiijo ahaan ku idlaatay 3-0 way guush ku qaateen xidigaha Elman waxaana kulankaas kooxda xafdanaysa horyaalka Soomaaliya Premier League Dekada goolasha ka dhaliyay xidigii hore ee LBJ Maxamuud Mayman iyo Anwar Said Ali Shakunda. falanqayaasha ciyaaraha gudaha ayaa arrintaas ku tilmaamay rikoor wanaagsan ay sameeyaan guuleystayaasha horyaalka Soomaaliya Premier League labadii kul ciyaareed ee laga soo gudbay. horyaalka furnay laakiin horyaalka waa laga faa'iideysan waayay maadaama aan furnay mar walba oo tartan la qabanayo saddex arrin ay jirto koox marka la ciyaarayso inaad badiso barbardhac ay gasho in laga badiyo كونعرنا كلية إنا بديسو وفرحة ما عليك كل بقى قادت ما عليك تلقى قولي سنة صبرت على الروا لكن تاريخ النوت هاي ما دام السنة كان أنجع عليه إن أنا جوريال كمر كان قادينه نبيتنا مقاد لكن هدي يكون قرنت إلا جاب بديو خفك صاحبك وسود ده لنا إنا قعدت جلس على الروا وهم بليسو وأنا كفر أحسن دكتة وأخوه عود بدل ما شاء الله وأخوه عياريان طياله جوجان waan ku faraxsanayn kulankaas inaan beatinkooda anaga aan jibino qof kale dad kale way qawaayeen anaga ayaa qabanay saas ay tahay waxa horyaalka ay ku guuleysteen waa hambalyeena kooxda waa wax weyn in laba horyaal inaad deeshid laga badiyana laba kulan waa wax aad u wanaagsan 36 kulan aad deeshay inay laba ciyaar aad guul dareysatid waa mustawaha markaas ay kooxdaada heerka ay maraysa aad ku qiimeyn kartid inay meel sare maraysa tahay waxaana ay noo tahay farxad iyo رين وناكسن إن كوح هذا لبسنا حرير أي كقولي ستو وحنا جعلنا هاي وإلهنا أنكر رجينينا إن مروا بإسقى أي كوشة بحياة إن سنة كسد هذا حريرة عن كد ذا الهدي إلهيرة. It's football, you know. We lost 3-0. We came into the game to win the game, but unfortunately, this is football. Anything can happen. So we lost, and we didn't put our heads down. We believe we can win the league. We believe we have the players. We believe we have the right people. We have the right frame of mind, the right coach, the right management. So we picked up from there, and we say there is no lose again. So we forge ahead. والله وانا حسيت markii ugu dambeysay horseed ilma dekada la garaaco horseed garaacday ciyaar laba hal ku dhamaatay ay ahayd absolute waxa xiga ciyaartii 3-0 Elman adduunku uu qiimeeyo kooxaha markay abinti ku wado tusaale ahaan in lagu garaaco kooxda Juventus champion gurigeeda waqti badan ay u dambeysay ka hor kulankii Real Madrid dekaduna waxay ahayd koox rikoorkaas sameeysay markaad fiiriso line upkeeda iyo kursiga kaadka isku qalbin kooxdu haysta koox shacab koowaad oo kaliya oo kursiga kaadka ciyaartooy fiican xoogan uma isfadhin laakiin waxay ahayd rikoor ka jabay dekada marka loo eego labadii sano ugu dambeysay in hal guul daro ay la kulmaan marka loo eego guuldaradii kale ee kulankii horseed ee 2017 marka walaahi way dadaaleen horseed waa dekadu way dadaaleen wayn u qalmeen markaas inay sameeyaan sida hor ujeedadeena waxay ahayd inaan marna dhulka dhinacayna la dhigin laakiin waa ku guul dareysanay ciyaartii aan Elman la ciyaarnay inkastoo uu qorshaheenu ahaa inaan marnaba laga adkaanin dekedan waa u hambalyeena horta horyaalka ay qaaday runtiina wax fiican ay dina MPT ka jabsho waayo horyaalka wadanka aad u fiicnaaday markii ay kooxdaas aan ka badiyay waxa dareemi kartaa horyaalka in hal dhibic lagu qaaday sanadkan oo ka adkaay sanadadii hore kooxda uu hogaamiyay Tabariyo Cali ee dekada ayaa kulamadii koowaad saddexaad iyo shanaad horyaalka Soomaaliya Premier League ku dhameystay natiijo isku mid ah oo markasta ay hogaanka ku sii dheereysanayeen waxayna toddobaad kasta kulamadaas kaga soo aadeysay maalmaha Isniinta runtii saddex kulan oo waaweyn inaan badino waxay noo tahay wax weyn oo qiimo ah waayo waxaan raadinayna kulanba waxay ahayd kulan walba sidii aan hogaanka aan ku sii qaban lahayn maantana waa u jeeday kulan aad u weyn ayaan ciyaarnay ilaahna guusha waa nagu siiyay alxamdulillah It has been good. It has been challenging.
oo ay jireen caqabado badan isla markaana waxa ay kaloo ahayd sanad aad u shaqaynay maadaama ay ahayd markii iigu horreysay ee aan imaaday horyaalka Soomaaliya waxaan halkan u joogno ayaa ah inaan taariikh dhigno wiilasha dekada inta ay ku soo jireen safarka hanashada iyo loolanka horyaalka Soomaaliya Premier League waxay soo kala dhigeen rikoor ah naadiga ugu badan ee ku badisa wax ka badan 5 gool kulamadii ay wajaheen kooxaha madbacadda gaadiidka iyo batroolka xaqiiqdii horyaalka Soomaaliya ma ahan mid xun isla markaana ma aha mid fudud ama adag waana mid aad loogu tartamo oo ay ka dhisan yihiin kooxo wanaagsan oo nasiiyo xuquuqdeena waxaan sameynay isku daygeena waana ku guuleysanay horyaalka markii aan la qabsanay horyaalka Soomaaliya waxa caqabad nagu ahaa luqadda Soomaaliga balse ciyaartoy ahaan si dhaqsi leh ayaan ula qabsanay laakiin markii aan ka hadalno dhaqanka waxay tahay mid fudud maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed waa dad muslim ah sidaa daraadeed maadaama aan nahay xirfadle banooni waxaan rajeynayaa inaan halkaan kaga gudubno ka ciyaarista horyaalka Yurub annagii waxna yaqaan ma leh macal dibadda markaan tago dad dhalinyaradii generationkiisa ay yimaadeen qurbihii waxayna yiraahdaan macalliyo cali walaalkiis anoo isaga ka weynaa marka nasiib wanaag maartay isaga hadda iga caansan oo Soomaaliya laga yaqaan oo maartay aad famous ah runtii aad baan ugu faraxsanahay maartay labadii koob isku xigay maartay oo qaaday marka runtii waxaan leenahay maartay in bahweynta sportiga oo North America oo soo wada salaamayeen wayna ku hambalyeynayaan marka insha Allah shaqo adag baa qabatay shaqada sii wad baan dheerleen macalliyo cali xidigihii ugu goolasha badnaa fasal ciyaareedka 2017 kooxda dekada waxay kala ahayn Faisal Xasan Xaashi Abbas Amin Maxamed Cabdinjiib Cismaan Ibrahim Raymond iyo Maxamed Xasan Faisal Xasan Xaashi ayaa sanadkii koowaad naadigiisa dekada u dhaliyay 16 gool wuxuuna kaalinta labaad ka galay kala sareynta gooleynta horyaalka Soomaaliya Premier League xidigaha kale ah Cabdinjiib Cismaan Ibrahim Raymond Maxamed Xasan iyo Abbas ayaa iyagana afka hore ka soo galay gooleynta Raymond oo asal ahaan ka soo jeeda wadanka Nigeria balse qaatay dhalashada Kenya ayaa kooxdiisa u ansixiyay 7 gool Maxamed Xasan oo isna ka mid ah ciyaartooyda ajaanibta ahna laacib ka soo jeeda wadanka Kenya ayaa isagana kooxdiisa u dhaliyay 8 gool balse kabtanka naadiga dekada Abbas Amin Maxamed ayaa sanadkii labaad u xiriir ah ka mid noqonaya xirfadlayaasha saameynta iyo gooleynta wacan ku leh safka dekada Cabdinjiib Cismaan Ibrahim oo dekada kaga soo biray ciyaarihii maamul goboleedyada 2017 ahaana weeraryahankii gobolka Banaadir ayaa sanadkii koowaad horyaalka Soomaaliya Premier League loo diiwaan geliyay inuu dhaliyay kooxdiisa ilaa 5 gool maadaama aan noqday gool dhaliyaha ugu sareeyay kooxda dekada wax aad loogu farxo maadaama aan noqday aniga gool dhaliyaha ugu sareeyay dekada sanadkii ugu horeeyay kooxda aan ka mid noqday aadan ugu faraxsanahay ma aqbalin sida ay goolasha iigu dhashay balse Allah ayaa ii qoray waan ku faraxsanahay waa wax looga baahan yahay marka hore inay safka hore ee ciyaartooydeeda isku qabsadaan gool dhalinta Faisal oo ka dhaawacmay maahan ay noqon weysay nasiibkiisa inuu ku guuleysto oo labadii kulan ay ugu dambeeyay dhaawac uga maqnaa kooxda oo dhaliyay 16 gool kooxda wuxuu yahay laf dhabar Raymond oo isagana dhaliyay 8 gool sidoo kale isagana kooxda muhiim ayuu u yahay maxamed oo isagana dhaliyay goolal aad u wanaagsan oo xilligii loo baahnaa iyadana ay ahayd uu dhaliyay 7 gool iyo kabtanka uu ku soo xigo isagana dhowr gool dhaliyay intoodaba waxaan leenahay dadaalkiina si laba waana ku bogaadinaynaa kooxda markay haysato hal dhaliyo waxay u dhowdahay mar walba inay dhibaato gasho laakiin mar walba markaad haysatid ciyaartooy wanaagsan oo gaaraysa 5 ilaa 6 kooxda ka caawinaysa inay goolal u dhaliyaan waxay tahay wax wanaagsan 9 May 2018 kooxda dekada ayaa ciyaartay kuna ciyaareedkii ku dambeeyay Allah 2017 horyaalka Soomaaliya Premier League waxayna ciyaartii ugu dambeysay horyaalka ku soo khatimeen guul weyn oo ay ka gaareen dhigooda batroolka kadib markii 6 gool iyo 1 ay kaga badiyaan taageerayaasha kooxda dekada maamulka iyo macallimiinta ayaa si weyn kadib guushaas ugu dabaaldegay garoonka Banaadir oo martigeliyay tartankii horyaalka Soomaaliya Premier League markii labaad oo dekada aan la qaado horyaalka oo isdaba joog ah 2 sano xiriir ah marka dareenkayga waa kacsan maanta ma sha Allah aad u faraxsanahay wax badan ayaan ku aaminay inaan back to back aan sameeyno waana sameeynay dareenkayga maaha mid la soo koobi karo aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maadaama aan 10 sano kadib aan horyaalkii ugu horeeyay aan ku guuleystay horyaalkan wuxuu ahaa horyaalkii ugu dhibka badnaa ee kooxda kubadda cagta ee dekada ay ku guuleysatay waad ogtahay mar haddii qalin low horyaal aan mar koowaad ay ku guuleysatay markii labaadna aad iyo aad ay u dhib badnaanaysaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay shaqada kooxda aan qabanay waa dareemaysaa qalin la adigaba sanadka hor shaqada aan qabanay shaqo ka badan iyo juhud ka badan aan kooxda gelinay
alxamdulilah ilaahayna waa noo fududeeyey inaan noqono 2017 aad iyo aad aan ugu faraxsannahay horyaalkan wuxuu ka dhexeeyay 10 kooxood laakiin juhdi badan aan gelinay iyo nasiibkeena iyo dadaalkeena iyo isku xirnaanteena wax walba noo saaciday dareenkayga waa mid aad u sareeya maxaa yeelay horyaalkii labaad oo xiriir ayaan ku guuleysanay runtii waqti badan iyo juhdi badan ayaan u bixinay maantana waxay noo noqotay maalintii aan ku guuleysanayno horyaalnimada waana wax taariikhi noo farxadna gelinaysa dhammaan tiimka hadduu ka kooban yahay hadduu ahaan lahaa dhinacyadiisa kala duwan maamulka ciyaartooyda macallimiinta iyo taageerayaashaba 12 May 2018 xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa garoonka Banaadir ee caasimadda Muqdisho ku bixiyay abaalmarinadii horyaalka Soomaaliya Premier League waxaana kooxda kubadda cagta ee dekedda la guddoonsiiyay horyaalka Soomaaliya Premier League iyo sidoo kale abaalmarino kale oo ay ka heleen xiriirka kubadda cagta Soomaaliya kadib markii xiriirka ay ku wareejiyeen koobkii Soomaaliya Premier League kooxda dekedda waxaa fantasi waaweyn ka dhacay garoonka Banaadir Stadium ee caasimadda Muqdisho waxaana halkaas si weyn u soo buux dhaafiyay jamaahiirta kooxdan iyo sidoo kale ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee dekedda halka kuwa kalena ay baraha bulshada hambaliyo ugu soo direen macallin Yuusuf Canoor iyo Cali oo kooxda u suurageliyay 2 jeer oo xiriir ah inay ku guuleystaan horyaalka Soomaaliya Premier League dareenkeena mid la soo koobi kar maahan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan markii labaad champion noqono waana dadaal badan oo aan soo muujinay waqti badan oo aan soo shaqeynay shaqo aad u badan oo qabanay aadan ugu faraxsanahay in maanta sanadkii labaad anaga noola calami saaro inaan noqono championka Soomaali Premier League dareenkayga aad iyo aad runtii aad baan u faraxsanahay runtii nasiib waaye 4 years 2 champion farxad aan la soo koobi karin seasonkii la soo dhaafay aan qaadeen hal kulan qasaarnay kulankaas oo ahaa horseed marka seasonkan waxaan ku rajo dheerin inaan beaten noqono inkastoo calafka halkiis gelin u yahay ما شاء الله أتي شقة أدقان قبنا ما شاء الله معلن كيجا أدبا وقولي سنة تاجريا شا أدبا ومسين إيجا نقرب تاجن ما أنت ديرجلين تودا ما أنت جامبيون كنا قنة سنة كان سنة كحجنا وحن جعلنا إن جامبيون عنا قنة أمبيت أنكو خدنا سانو قرب تاجنا تاجريا شيء أنا هذا أنا وفرح سنة ما دام عنا قنة جامبيون مركي لبات هوريالك الصوماليا هذا أنا وفرح سنة عياريان والبن وحو أرضا وحتى إنه كقول هوريالك أنا ما عنده وحنا نأخذ جامبيون وأنا كفرح سنة ما دام جامبيون نأخذي هذا مو فرح سنة سنة كل بعد إناق أنه ريالك إذا تاجر وهذا وما سنتين وحنا ما أنت جوشن قارم تاجر نبدين واي هذا يوم هذا علينا ku guuleysanay 2 sano oo xiriir ah waana wax wanaagsan kooxdana u ah taariikh iyo farxadba sanadkii hore waxaan ku guuleysanay horyaalka waxaan ku qaadnay dhibco 42 dhibcood sanadkii hadda dhamaadayna waxaan ku guuleysanay horyaalka waxaan ku qaadnay 39 dhibcood kooxda waxay selection ka samaysaa heerarka kala duwan ee tartamada ka dhacay dalka waana wax noo qorshaysan oo ah mar walba inaan degmooyinka ka select garayno ciyaartooy da'yar oo talentigoodu aad u wanaagsan yahay goboladana sidoo kale marka sanadkii ugu horeysay gobolada waxaan ka soo xulanay Cabduqaadir Siido Sayga oo kooxda kula guuleystay horyaalkiisii koowaad sanadkaana waxaa ka helnay ciyaartooy kale oo iyagana gaaraya ilaa iyo dhowr waxaa ka mid ahaa Saciid oo goalkeeper-ka kooxda sanadkii hore asagana u dheelay gobolada Cabdimajiid Awali iyo Axmed oo isagana ah kabtanka gobolka marka mar walba waxaan jecelnahay inaan kooxda ku soo biirino ciyaartooy da'yar ah ha noqoto heerarka kala duwan ee tartamada dhacay mar walba waxaan raadinaynaa ciyaartooy talent ah oo kooxda wax ku soo kordhin kara arrin farxad leh adigoo markay ugu horeysay oo ka soo baxday qaybtii gobolada oo heer horyaalka qaybta koowaad aad maanta dana koobkii aad qaadid waa arrin farxadeed halkeeda ay la eg tahay saasay tahay waan ku rajaweynaa inaan la qaadayo kooxda dekedda koobkii ugu horeeyay ee horyaalka Premier League aad iyo aad ugu faraxsanahay waxay aad waqti wanaagsan gobolka Banaadir u soo ciyaaray 2 sano alxamdulillah waxa maanta farxad weyn isi ah anigoo ka imaaday gobolka Banaadir ciyaartooydii hore ee dheeshay tiimkayga dekedda horyaalkayga ugu horeeyay Soomaali Premier League inaan la qaado aad iyo aad ugu faraxsanahay
kooxda labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa u ciyaaraysay ciyaartooy ajaaniba oo ka kala yimid wadamada kale ah Ghana, Nigeria, Kenya. haddana sidoo kale saas oo kale way u ciyaarayeen ciyaartooy ka timid dalka Uganda iyo Kenya iyo Nigeria. haddana isla sidii waxay ku guuleysteen horyaalka. mar walba ciyaartooy uu noo yimaado waxaan jecelnahay inuu nala sameeyo history, waayo waxaan u soo qaadanayna waxay tahay baahi jirta inuu ka caawiyo baahidaas kooxda ayaana jecelnahay. in ka badan 10 xidig oo door wacan ku lahaa safka dekada kul ciyaareedkii 2016-17 ayaa kooxdan ka dhaqaaqay, waxayna xidigaas iskugu jireen ciyaartooy u dhashay dalka iyo kuwa ka soo shaqo tagay wadamada dariska ah. haddaba arrintaas saameyn ma ku yeeshay hadafka wiilasha Yuucali hogaaminayay ee ahaa ku guuleysiga markoodii labaad ay xaqiijiyeen hanashada horyaalka Soomaali Premier League. Teamka waxaa ka baxay ciyaartooy aad u muhiim ah oo aad garanayso ilaa markii 10aad oo kale, inkastoo positionka uu ka baxay uusan ahayn position runtii kooxda ay u dhibtootay. Sikri Tawfiiq oo kale ciyaaryahan muhiim ah Catosh oo markii 10aad ahaa oo runtii kooxda waxaan is dhigi karaa suugada yarada teamka in sanadka hore ninka dhameystir inuu ahay, laakiin qadka dhex kooxda dekada oo runtii ah koox runtii meesha kaliya ka dhisan tahay. marka hore waxaan u mahadnaqaa ciyaartooydii ila soo shaqeysay samaysay ilaah ayaa nasiiyay ka sokow iyaga sameeyay in ay horyaalkaas kooxda sumcadaasna keenaan. waxaan leeyahay marka hore waa mahadsantiin shaqadii ay la soo shaqeyseen iyo waqtigii wanaagsanaa isla soo qaadanay iyo wixii aan idin diray oo aad qabateen waa idinkaga mahadcelina. marka xiga waxaan u rajeynaa iyaga dhammaan waa ciyaartooyda ilaa hadda ku dhawaad waa dhowr iyo 10 kooxda safka hore qaar ka ah ay qaar binjiga ka tageen. waxaan u rajeynaa nasiib wanaagsan kooxaha ay tageen iyo meelaha ay ka ciyaarayaanba inay ka muuqdaan sida ay kooxda ugu soo muuqdeen. ciyaareed wuxuu ahaa cajiib ah inuu aan warsho ku dhagoolinta qaaday macallimiyo Yuucali taariikh sameeyay inta ka damar labaad ay qaaday Faysal Xasan Xaashi markii ugu horeysay horyal qaaday Daawud Cabdullaahi Tuwaar markii ugu horeysay horyal qaaday ayaanu ka baranay wuxuuna ahaa xil ciyaareed u qalbeen dekada hantaan horyaalka sababtoo hal jeer ay laga badiyay guud ahaanba. 29 May 2018 waxaa la soo xiray hadafkii dheeraa ay kooxda u soo gashay hanashada iyo mar labaad inay difaacdaan koobka horyaalka Soomaali Premier League. waxaana tababaraha kooxda dekada Yuusuf Cali Yuucali ciyaartooydiisa maamulka taageerayaasha iyo warbaahinta ugu mahadceliyay si ay ula soo qayb qaateen 5 bilood oo horyaalka ka socday caasimadda Muqdisho, isagoo ciyaartooydiisa u jeediyay khudbad dhiirigelin ah oo kaga hadlayay marxaladihii kala duwanaa ay kooxda soo martay tan ilaa 2016 guulaha ay kooxda gaartay iyo horumaradii kala gedisanaa ay kooxda sameysay, isagoo soo kale ciyaartooydiisa iyo taageerayaasha hambalyo u diray halka ciyaartooydii kooxda ka tagtana oo u rajeeyay mustaqbal wanaagsan. maanta waxaan rabnaa inaan inta ku soo gabagabaysano waqti dheer dadaalkii aan ugu soo jirnay in Ilaahay noo fududeeyay horyaalka dalka muddo kadib inaan ku guuleysano. waxaan haddana aan ku faraxsanahay wada shaqayntana dhex martay maamulka ciyaartooyda taageerayaasha intaba waa idinkaga mahadnaqaa. haddaan adinka ahaan lahayn guushan quruxda badan ma aanan gaari lahayn. runtii wax walba aan qabanaynay waxaa noo fududeynayay maamulka kooxda, dadka hawsha qabanayay haddana waqti walba juhdi bixinayay iyagoo dhaawacan iyagoo xanuunsan iyadoo jidadka ay xiran yihiin culaysyo kale ay iska jireen. intaas waxa ku amaanan waa idinka. haddaan adinka ahaan lahayn guushan maanta ma noo fududaateen ma noo dabaaldegeen. marka koowaad ilaaha uga mahadnaqaynaa, marka labaadna maamulka, marka saddexaadna hawshaas idinka oo sida saxda u fuliyeen. waxaan kaloon u mahadnaqaa oo meesha aan rabaa inaan ku soo daro kooxihii nala tartamayay, maadaama hadday tartan uusan jirin ma qurux badnaan lahayn tartanka aan ciyaarayno. waayo waxaan nala tartamayo nala challenge gareynayay oo hawsha aan qabanay inaan aan ka mira dhalin karna na tusinayo waxay ahaayeen kooxaha nala tartamaya. iyagana waxaan leenahay hambalyo, nasiibka ayaa dhinaciina noqon waayey, waqti kale waa heli doontiin, waana dadaasheen. waxaa xusid mudan mar walbo isku imaatinkeena inuu Ilaahay noogu soo xiray maalin farxad leh annagoo koobkii haysana tiimkii oo wada dhan annagoo qof naga dhaawacan aysan jirin. waa idinkaga mahadnaqaa. waxaan rabnaa inaan Ilaahay uga xamdino guushaas aan gaarnay. hadda ayayna howl diyaar noo tahay. marka waa mahadsantihiin. waxaan idin leenahay waa idin bogaadinaa dhammaan maamulka ciyaartooyda iyo taageerayaashaba. waxaan idin leeyahay mar labaad mar saddexaad hambalyo aan ku raaxaysano guushii aan gaarnay.
waxaan aad ugu faraxsanahay 2017 inaan ku ceshano horyaal kaalinta labaad mar labaad waxaan dareemaa farxad weyn waxaan u malaynaa in ay laba culug ugu nasiib badan tahay ciyaartooydu ma fahmi karaan sayga oo laba horyaal qaaday sana horan cusbay iyo cabdiweli oo sanadka cusub asna horyaal ku guuleystay midda kale waxaan aad u jeclahay kooxda ciyaartooydeeda maadaama shaqo xoog leh ay qabteen way ku mahadsan yihiin waxaan dareemaa juhdi badan oon galnay awgiis in dadaal badan aan samayno haddaan la dadaalin oo dad isku xidhan aan lahayna guul lama gaarayo naadiga dekada xilligan sanadkan xilli ka fiican oo soo maray ma jirto iyo ciyaartooyda oo waqtigooda badan galsheen in badan dadaalin ciyaartooy ninkii soo saaro wax la bedelo naadigu ma ilaabi karo marka yuu cali waxaan leeyahay aniga taariikhda ku xusayso waxaan hambalyeynaya kooxdii hore maadaama ay guuleysatay Soomaali Premier League aad iyo aad u hambalyeynaya bandhig fiican ay sameeyeen waana ku faraxsanahay kooxdii hore inay qaado mar labaad ee noqdo champion oo ku faraxsanahay kadib koox fiican waaye maaragta isku xiran aadan markin oo ugu hambalyeynaya maadaama loo sano isku xiran ay koob qaadeen dadaal fara badan ay galeen maamulka kooxda iyo ciyaartooyda iyo dhammaan ay u suurtagashay inay qaadaan hambalyeynaya hambalyaan leenahay takada way maaragta way ku guuleysatay waa dareemi kartaa koox haddii horyaal ay ku guuleysato waa tiim wanaagsan oo micnaha si wada jir iyo maaragtay iyo awood iyo dardar ay ku qaaday aad iyo aad ugu hambalyeynaya ciyaartooydeena hore Faisal Xasan Xaanshe iyo Daawud Cabdullaahi Tawaal kabtankeyga hore oo hambalyeynaya inay ku guuleystaan horyaalka Aliyu Cali waxaan leeyahay congratulations hambalyo horna waan u dhahay haddana waan leeyahay so this is competitive champion waaye so mar walbana 10 macallin ama 20 macallimiin Soomaaliya joogto wada guuleysanayso wanis uun mid mar guuleysana waxaan leeyahay kooxda dekada hambalyo saaxiibkayga Faisal Xaanshe Daawud Tawaal waxaan u sii rajeynayaa horumar intaan ka sii wanaagsan insha Allah dekada waa hambalyeynaya inkastoo koobka ay qaadi waa koox tayo leh waa koox oo juhdi badan la soo galiyay gudoomiye fiican haysto sayniska fiican aan u rajeynaa dekada kooxda dekada waxaa leeyahay xil ciyaareed fiican ay sameeyay sanadka hore sanadkan marka waxaa leeyahay saaxiibada Faisal iyo Daawud Tawaal hambalyo leeyahay koob maadaama ku guuleysteen hambalyo leeyahay kooxda dekada ugu hambalyeynaya ku guuleysiga horyaalka sidoo kale macallin Yuucal waxa leeyahay hambalyo aniga waxaan taageeraa kooxda FC Elman daawdal waxaa intaas noogu eg silsiladii guusha kooxda kubadda cagta dekada labadii fasal ciyaareed la soo dhaafay ku guuleystay horyaalka Soomaali Premier League waxaan u mahadcelinayaa dhammaan asxaabtii ka qayb qaadatay soo saarista barnaamijkan anagoo isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadiina